waxaan joogaa magaalada Salax waxaa jira xaalado adag baa jira xoolihii waa sidaa xamaar rahiim dadkana waa sidoo kale marka waxa weeye wax la qabto iyo wax soo gala inna ma jiraan xoolihii waxay cunaan iyo xilliga ay hadda roob la'aan ku jiraan gu iyo dayr iyo labada jiraan afartaan marba waxba ilka roob kama helin waxay ku sugan yahay waa garanaya waxba armayo inta hadda halkaan aan ku soo wacay waxa weeye halkaan dawladda ma joogto waxa jooga baabuur shacab kiftigeeda ka dhigeen waxa caqabad ka timid Puntland iyo dadkooda ma ka joogaan kara waxa weeye ceelkii ceelkaa soo rayn hadda habeenkii maalinba waa shinaal haddii uu soo reeyahay habeenkii baa shinaal loo baahdo hadda ceelkaas leexan joogo $5 habeenkii maalintii gooyaha laga qaadaa cidii baa la waayay hadda tobanbari waxaanu ka dhignay bilaash lacagta waa aruurinaa weli waxaanu leeyahay lagu qaado xoolaha wixii baa gudka ku wanaageen kelmada saaka aan kuusa waxa weeye Puntland iyo cid kasta oo imanaysa waxaa rabaa inay jawaab ka bixiyaan ceelasha in laga dhigo bilaash sidaa loo raadsho wixii kaloo lagu dari kara waa meesheeda laakiin waxaan kuu soo wacay in ceelashii dawladda Puntland ay tilaabo qaado oo la soo dadaalo ceelashidaa la keeno oo laga dhigo bilaash inta hadda u saaroodo geelkeed saamacaarixna uu dib soo gaarna uu bilaash ku cabdo hooyadaha hadda shaqaynaya oo yaacaya oo dadka biyaha gaarsiinayana waxaa arkaysaa bood waxaa yarmaysa 5 saacadood u taagan $5 oo meelka caawa shidaalka loo gudaha raadinaysa qofkiina ma haysto boodiina ma haysto waxa isaga ku kooban yahay baahida ka jirta deegaanka waa tilaabo in laga jawaabo 24 saacadood soo aadan in biyihii bilaash laga dhigo oo booyadihii ay dadka biyihii bilaash ay ugu qaadi doonaan diwaalgaari doonaan laakiin ceelka in laga fasalo ceel shidaal la keeno ceelka soo ramaanti waa iska bilaash habeenkii loogu daro shidaal la keeno baahida ka jirta waddankana waa khatar cadiima lagu sameeyay hadda waxaan maqlayay dad baa dhintay annaga meel dad ku dhintay ma hayno laakiin waxa weeye waa khatarteeda ay leedahay waa la bagayaa xooluhu waa dhumayaa taas anaa la tegay kormeer ku tegay oo adiguna waa baktiya jiro waa fariisanaya laakiin hadda meel dad cad ugu dhintay anigu oo kunka digmada jiriibana ma hayo mana maqal waana amaaldo habeen hore iyo shalay iyo waxbaa la sheegay deegaamada hore waa wacay hadda anagu meel qof cad ugu meeday ma hayno laakiin waa taagan tahay in la baktiyo waa magaajo loo dhinto ama cunlaan rabo ay baaba'aan khatarteeda leedahay ilaah baa dadka iyo dunyada abuurtayo anigu hadda waxaa saasaa wax kaconayaan ma ororayno laakiin waxaan leeyahay la dadaalo weliba tilaabada u horeysa ha laga dhigo waa waxaa laga gaarsiin karo ceelasha laga dhigi kara bilaash hadda shidaal soo raro hadda intay gaara ceelasha lagu daadsoonaya habeenkaa ku cabay ceelka shidaal uu soo raraya ku cabay aniga tilaabada hadda midiya usugan waxa weeye tilaabada ugu horeysa oo la qaado ha noqoto ceelkii bilaash looga dhigo biyaha looga dhigo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay foogana intaada khadka ka bixin waxaa sheegtay in deegaano badan aad martay xaaladana aad qiimaysay deegaanada martay wax ma nooga sharaxi kartaa waa deegaanka hadda nagu xeeran sida hadda markii xaggaas laga soo gaaray badaaye balibusle aanguulo dooshaale Salax goobi ilaa iyo hayaale iyo golaadiye iyo soofiga ilaa malaasle soo kaa waxaa tagay iyo waxa waxay ku jira waxa weeye oo iyo dadkuba khatar bay ku soo foolle ilaahay waa ka badbaadi karaa ilaahay roob waa sii karaa ilaahay caafimaad waa sii karaa ilaahay inta waa sii karaa laakiin anigu hadda waxaan wixii arkay hadda waan ka jawaabayaa xoolihii waxa weeye baabuurtii biyaha u geey jireen hadda waxay taagan tahay sheeko waa baabuurta kacaya booyada wadkii maxaa buu yeeshay waa magax waa dhibka ka taagan xoolihina waa dhumayaan dhibka jirto kale waxa weeye ceelkii hadda laga daadsanayay haddee lacag buu rabaa lacagtii markaa laga helayo haddii aan lacag la helin ceelkii shidaal helmayo annagu marka hadda tobanbariintii waxba haluunaynay waxaan ku talagalnay habeenkii ceelka shidaal loo helmaan soor baa lagu cabaa oo xoolaha ku seen habeenkiina inaan wax aruurino oo beri annagu tabarta aanu leenahay aanu ka gaarsanay inta nala soo gaarayo intaasaan waa weydna xoolaha iyo dadku waa sida hadda wax wey ceed leeyahay soo noqmay mooy laga aan leedahay in baa jaban ceelashu waa wada biyo waa loo oo tuubooyinku waa dhaxaysanaya iyo doorsaa maxayus tahay toban daniga ceelkii dhisan oo hadda soonkaana waa dad ku dhimanaya markii waxa weeye booyadu habeen iyo maalin waa taagan yihiin waa laga gaarsanaya biya waxaa marka cunsiga ku kooban yahay dowladda Puntland tilaabo inay qaado waddanka timaado ceelasha timaado ay imaynayso
هذا التلامة ولا قاعد كذلك وحلوه جالسين كذا إلى وحجالسين كذا لكن هذا التلامة مفروض هذا الشيء كذا جوانه ونفس هذا الخير waayahay foogane ma wacdeen oo ma la xidhiidheen hay'adaha biyaha ku shuqul maadaama ceelasha culayskaas idin soo food saaray saaka waxa la hadlay gudoomiyaha gobolka baa la hadlay midig baa la hadlay waa u sheegay tilaabada fudud oo maanta qaadi karaa inay noqoto shidaal in laga gaarsiiyo meelaha geesu ku yaaliin oo inta biyaha gasiga waxa la dadku waa dhimanaya inta lacag baa laga rabaa labadaas ma qabanayaan ceelka biyaha bilaash leeyahay ku soo bixin waa in taagan weey hadda waxa soo baabuur ay joogta oo yaal waaweyn oo biyaha ka shaqeeya dadka biyaha gaarsiiya inay taagan waana ku diiday laakiin waa u sheegay gudoomiyaha gobolka tilaabada qaada han oo kale gudoomiye inaad geesaan ceelas tagtaan la isagana ceelas oo ninka hadda oo ku soo arooro dowladda biyaha qaaysa ay $100 saacado taagnaan oo hawsha qaada hadda ceelka reebil kale soo maray habeen maalinba waxaan raashin leeyahay joogo ma laga bixi karo dadkii ma helayo biyaha kuma ka kala labada geli mas'aal waxa ka soo bixiya si qoran soo diimiyo soo diimiyo waa mahadsantahay odayaasha kale idii waa ku leeyahay hadda hay'adaha kan وعليكم السلام سودا ولا لمحا عليو بل كور بخي dadka aad waaku salaamay waa ka qaaday dadka biyo dhaaminta u sameeysid iyo xaaladooda bal adiguna ka sheekee هذا الوقت يعني مركب بيدانك هذا شكله. وقت باجي من بيدانك هذا بابور هذا ومثلا باور تكسر شهر وكمله. واقرته. باور كاس وحوي ويسكتوا هنا نظام ذاتك العد كان ويسكتوا ذاتك دوك. هنا نظام ويسكتوا. waxay hadda waqti adag baa qofkii waxba maayo diyaar oo baahiyo oo u taala baahina waxaan noqotay motorkii baan $5 baa loo baahay intii meel ku qori karay ama la oran karo waxaas ama tariiqeena ama wax isku soo kagan karo wax isku soo kakabo dadweynihiina waa waayay $5 oo eerka baabuurka tan loogu keenay waa waayay marka waxaanu leenahay anaga baabuurka hadiidanka alla ka dhigo oo wax la heli karo oo waqtigii saas uu dhacaytaan baabuurkii fasaxay warada $5 in laga caawiyo dadkii baanu rabnaa dadkii laga caawiyo in la heli karo baahida ugu horbadan in $5 dadka oo eerka diiwaan ku shaqo u helo waayahay adigu gaari baa wadataa booyadii baa wadataa booyadaadu shidaal bay isticmaalaysaa maxaad samaysaa marka hadda bilaash midka anugu aan leeyahay oo shidaalka samaysa oo shidaalka cabaysa haddii aan arkay dadka iyo dhibtooda sida wax u jiraan qofna wax ma weydiiyo qofka biyaha u shuba waana ka dhaqaadaa shidaalkana maxaa ku dabarataa shidaalka waxa ku dabarataa ama kaali shidaal aan tago waxa lagu yeesho ama haddii aan isku dabiro aniga hawshaas aniga isaacada waayahay meelaha marka haddii aad heshidba $5 ee aad ceelka biyaha ka qaadid dadka aad u geysaa seeyihiin xaaladoodu dadkaas xaaladiisu waa khatar weyn waa intaa ka yada saabtay baabuurkaygii dhammaan aan isaga daayo uga aamusay waa tahay deegaanada u dhaamisid wax ma ka xusi kadhaa biyaha geysid adigu khaas ahaan horta anu salaxda hadda jooga صح laakiin in dheer baan geliyaa in dheer 30 kilomitir baan geliyaa 15 kilomitir baan geliyaa 20 baan geliyaa waxaan geliyaa hadii 10 kilomitir baan geliyaa afarta koonaan ka geyn magaalada salaxnaba jidada meelaan uga dhaqaajin dadka iyo xoolaha u biyo dhaaminaysa ma soo gaaraan miyaa isha biyaha soo gaaraan hataa midka 2 kilomitir u jooga biyaha u geeyaa midka 2 kilomitir u jooga biyaha u geeyaa waa mahadsantahay inta jooga iska daayo waa mahadsantahay aad baan kuugu mahadcelinayaa ilaahay madar khayr qaba oo ina deeqahayna siiyo aad baan kuugu mahadcelinayaa adigana nin walba wuxuu la soo baxuu leeyahay dadka iyo dunyadu idinka mas'uuliyad gaar ah idinka saaran tahay qof walba waa ka saaran tahay laakiin qofka caawin karaya mas'uuliyad gaar ah ka sii saaran وأنا أقول هذا إلهي نبدي خير إلهي مسيء خير الله مسيء إلهي بين كل من كفارة عوض كفارة إلهي بعد شيء كل من إلهي وحده نكره لكن كل كاس أشري فكره واحد ما كلام مكراني لو يتوضع هذا ماشي كلام لأنه لو يتوضع هذا فوق
marka xoolaha ay ku noolaayeen marka hadii ay ku ilaahay baa risq waashaa bixinay ilaahay baa ku leeyahay ku filan waxa liitay waxa fiican ilaahay baa ku filan aad baa u mahadsantahay